kulankani tababarka ee halka maalin qaadanaya ee loo qabtay saxafiyiinta ka howlgala gobolka Awdal waxa soo qaban qaabiyay ururka Solja ee Somaliland kaas oo ka soo qayb galeen hoggaanka sare ee Solja gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal waxaana kulankan isku mid ay ku garnaqsadeen saxafiyiinta ka howlgala gobolka Awdal oo ay soo bandhigeen afkaaro iyo fikrado ay ka qabeen ururka Solja kuwaasi oo iyagu saluug ka muujinayay hoggaanka Solja iyo guud ahaan wax qabadkooda gudoomiyaha saxafiyiinta Solja ee gobolka Awdal ayaa isagu taladani u diray hoggaanka Solja waxaana uu ku baaqay in tababar tiro badan la soo gaarsiiyo saxaafadda dhalinyarada gobolkan Awdal tiradooda badan iyo fahamka oo loo baahan yahay in waqti la siiyo waxaan ka codsanayaa mas'uuliyiinta Solja heer qaran in ay marka tababarada dambe waqtigana ay ka kordhiyaan tirada saxafiyiinta ka qayb galaysana ay ka kordhiyaan in badan ayaa ururka Solja wariyayaal ku nool magaalada Hargeysa ay u dareen tababaro la xiriira dhanka saxaafadda oo aqoon kororsiya dalka dibadiisa iyo dalalka dariska kuwaasi oo gacan ka helaya hay'adaha caalamiga waxaana tababaradaasi saluug ka muujiyay Abubakar Xasan Caafi isku duwaha wasaaradda warfaafinta ee gobolka Awdal wali ma jiro qof saxafi oo Awdal oo dibadda loo diray ee Hargeysa baa la yiraahdaa waa laga baxo magacii Somaliland oo ku soo ururay markaas Soljana waxa leeyahay in iyaguna baltaasi ayagaan oo nimanka saxafiyiinta gobolkan jooga in lagu dabro tababarada dibadda geesta kale Ali Ismaaciil Aare oo kamid ah saxafiyiinta ka howlgala gobolka Awdal kuwada muddada dheer ku jiray saxaafadda ayaa meel adag iska taagay hanaanka doorashada hoggaanka Solja waxaana uu sheegay inuu cid gaar ah u xiran yahay hoggaaminteeda mar kale xukuumadda musanaha inaga laashabe bal mar qudaro inaad inoo keentaan xeerkeenidii qabiy qoraalka ahaa odgolaha cadaadis aynu ku saarada inta dabada ka riixdaan kulli intaasan idin kula talinaya tiisiraayo way naga laashay tii hore way naga laashay bal tanna muusana aynu kaga qoosano markan halkaas ay u yardhuteysaa kulli saxaafaddu oo damaanad qaadkii xeerkii damaanad qaadi lahaa ayaa kulli ay wax si ka yihiin taana aynu isla faano sidoo kale xogayaha ururka Solja ee Somaliland ayaa tilmaamay inay wax badan ka qaban doonaan cabashadaasi ka soo yeertay nolosha inta lagu guda jirana cabasho iyo wax isku sheeg midna lama waayo anaguna ka Solja ahaan waanu idin furanahay in wixii cabasho aan noola timaadaan wixii halkan laga jawaabi karaan ka jawaabno wixii kalena markaan dib isugu noqono inaad jawaabteeda heshaan oo aan sidaas leeyahay kaga maqnaanin waana idin dabaanad qaadaynaa ku-xigeenka gobolka Awdal Cabdi Nuur Sugaal oo isaguna goobtaasi ka hadlay ayaa si adkeeyay hadalka ka soo yeeray saxafiyiinta suxana uu baaq u diray cid isku goobtay hoggaanka xiriirta iyo xubnaha lama huraanka ee Solja cadaalad ku dhaqaan ururka Solja oo ku ay ka tahay in dibadda marka loo baxayo gobolka Awdal awna ku jirin taa la inaga helan leh oo cadaaladda haddii xaqiina ka bilaabanto dhulkoo dhan ba cadaaladda iyo saxafiyiintu way garanayaan marka taa cadaalad ahaan inaga helan leh maaha markii ugu horeysay ee warbaahinta ka howlgasha gobolka Awdal ay saluug tagon iyo mid taban ay ka muujiyaan ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solja saluugan iyo tabashadan ayaa waxa uu daba socdaa mid hore oo hoggaanka dhaqanka ee gobolka Awdal ay saluug xoogan uga muujiyeen saami qaybsiga Somaliland Ahmed Ciiltire wararka warbaahinta SBC Boorama